annagoo ka hadlayna baaqii ka soo baxay degmada Sayla oo u jawaabayna sababtii hore ee la bedilay dadkan oo beeray ee in abaadir ka mid ka yahay dadka waa in wax laga qabtaa hadduu sharcigu wax ka qaban waayna talaabo cad baa laga qaaday imika waxa ku soo dhaweynaya hogaamiyaha bismillaahir rahmaanir rahiim wasada uu ninkan sheegay waxaan sheegaynaa annagu waxbaan la soconaa annagu marka la yiraahaa Sayla gobolkan Sayla la yiraaho cid ay naga dhaxaysay dawladii kacaanka heedidu baa la sheegay annagu cid kale ma naqaan waxaan kaloo sheegayaa saaka ninka midoo ina abaadir la hadlay waxaan kaga dhigay nin tolkiyo maxamed caso joogo gobolka oo balka warano walkii uu waramayo yamanin isaaqa barasaabka hore isaaq baan u baahanaan ka idhaa buu iga yiri ima garanayo waa markaasaan ka warnaas baa ku qabanay yaa ina dhaga daloolku dhalin ka daabaan filinkan ciisu barasaabkina way yeesheen waxa soo dhamaan ka goro ka duubay waxaan ku sheegay in abaadirow abtinimada dadka ku deeqooyo ila dhaga dalool way dhimatay yaa annaga iyo ciidankayga imka ka imanayna xarar baan ka imanayna annaga wadanka u dhalan yaa barasaabkana hooyada isaaq ma hay hooyadii ana wasay isaaq halkan ma la dee annaga hale nin walba gobolkiisa baa la geeyay yaa haddii cabdi siciid la bedelana booraba geeyaan oranayna yaa markaan isaaq dadka ku qabi jiray baa doonaya ku iman laakiin cabdi siciid qaranka doortay sidaasaan maxay naga balana dagaalka hadduu yaa xarir waan tagaynaa diyaar uma tihin